الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو waxaan rabnaa inaan kusoo bandhigno insha Allah. Shirkadan la yiraahdo Dragon NFT ay waxay bixinaysaa waqti kooban, limited kooban, waxay bixinaysaa free Dragon NFT oo qiimaheedu gaaraya $300. marka si free ah ayaan ku heli doonaa. marka qiimaha hadda wuxuu joogaa oo hadda u baahato NFT-ga inaad iibsato 500 oo xabo oo matic ah waana gadan kartaa. 500 oo matic hadda waqti xaadirkan wuxuu joogaa $450 waaye. marka qiimaha $300 xataa waa ay ka badan tahay. marka NFT-ga marka muxuu noo faa'iideynaa? wuxuu noo faa'iideynayaa haddii aan gadano ama aan milkino in uu maalin walba noo soo saaro $10 ilaa $12 lacag gaaraysa inuu noo soo saaro maalin walba ayaa faa'iidadaas ayaa noogu muhiimsan. marka si free ayaan ku heli doonaa insha Allah. ila socda tilmaamaha wax dhan ayaa idin siin doonaa. marka shuruudana laga rabaa waxay tahay kaliya in aan maxay ahayd tilmaamaha ay siin doono insha Allah aniga aan maray inaa ila martaan insha Allah. kadibna waxaa heli doontaan hal xabo oo waxaa heli doontaan Dragon NFT ah. NFT-gaas marka asaga insha Allah waxaana la siinaa marka muddo 12 maalmood gudaheed ah. 12kaas maalmood marka waa shaqaynaynaa, waa maalin walba waa galaynaa, waxaan soconaynaa wax gaaraya 500 mitir. kadibna waxaa noo furmaayo oo noo active gareysmaayo haddaan awoodin inaan gadano waayo oo aan rabno inaan free Dragonkan aan helno oo $450 qiimihiisa yahay. haddii kalena oo aan rabin oo ishidaysana toos waxaa u iibsan kartaa Dragonkan NFT-ga ah. kadibna maalin walba wuxuu kuu sameynaa inta u dhaxaysa $10 ilaa $12 qiimo gaarayso. okay, ila socda insha Allah. qaybtan hoose asagana sidoo kale waxaan nalo sheegayaa in aan waa sahlan yahay iyadana inaan groupkan galno. groupkan markaan galno linkigeeda wax dhan aan sameyno, qof walbo aan keeno waxaana lagu siin doonaa $30 qiimo gaaraya oo lacagta DMA-ga ah oo shirkadan ay leedahay. okay, ayadana insha Allah waa isla sameyn doonaa, isla soconno. okay, tilaabada koowaad marka aan qaadayno waxaan ka bilaabaynaa linkigaana horta marka hore ku dhufanaynaa, kabacdina page cusub aan tegaynaa. linkiga labaad aan ku dhufanaynana waxaa waaye okay, linkigaas markaan ku dhufano halkaan aan tegi doonaa. halkaan markaan tagno meeshaan waxaan gelinaynaa email addresskeena, kadibna waxaan dhahaynaa code send code aan leenahay. halkaan marka waxaa kaaga soo bixi doono muxuu ahaa kabaja oo ah inaad maaragtay human tahay caddee camal. hal meelaa kale ku siinaysaa, kabacdina sawirro kuu soo saaraa. sawiradaas wuxuu ku leeyahay kuwa yihiin sheeg. hadda sawirada saxdo calaamad tiktok kuu saaraa waa ka gudbaysaa. okay, stepka ku xiga marka waxaa waaye halkan ayaa waxaa gelinaysaa password kartaa gashan kartaa. password adiga ay hiloobaynin ayaa muhiim ah. waxaa ka dhigan kartaa number ama magac ama waxaa jecesha adiga password aad ka samaysanaysaa. kadib emailkaaga ayaa tegaysaa. emailkaaga markaad tagto waxaa kuu soo dhacay messagekana kuu soo dhacay iyo oo ka kooban koodhkan. marka koodhkaas ayaa koobi garaysanaysaa. meeshii hadda aan imaanay ayaad imaanaysaa, koodhka ayaa halkan gelinaysaa simple. marka dabcan account kale kama samayn karo. waan jeclaa in anigoo wixii samaynayo aan videoga in kaga soo duubo, laakiin maadaama aan teleefankayga aan ku samayn karin oo account-kayga dhibaato u keenayo, waxaa intusaa bas tilmaamaha wadadii aniga aan maray ayaan intusayaa. intaas markii aad samayso oo submit aad tiraahdo account-ku kuu samaysmay, kabacdi stepka labaad waxaa waaye inaad ku laabato halkan, kabacdina appkan ayaa soo dejisanaysaa. halkaan aad ku dhufanaysaa. appki ayaa kuusoo download gareysmaayo. appka marka wuxuu kugu soo gareysmayaa as APK ahaan. kadibna waxaa laga yaabaa inuu teleefankaaga ku dhaho u fur settingiga permission, kadib permissionka aa u furto. marka uu dhamaystirmo kadib wuxuu ku dhahaa new version aa jiro, new versionkaas kala samayso. okay, meesha waraaqa kusoo bixi, waraaqdaasaa click ku siinaysaa. kadibna latest versionkaasaa dhamaystirma, adigo iska sugaysaa. markuu kuu dhammaado kadib almost waxaad tegaysaa waxaa imaanaysaa appka ayaa kuu furmaya sidaan. kadib halkaan marka waxaa gelinaysaa emailka isku diiwaan gelisay. halkaana waxaa gelinaysaa passwordka aa ku samaysatay, kadibna submit ayaa leedahay. inta ayaan sameynaynaa, waa isku soo laabanaynaa.
halkan markaan imaano waxaan kusii dhufanaynaa NFT mintiga ayaan kusii dhufanaynaa. Okay, toos marka waxaan u imaanaynaa app ahaan markii aan ka galno qaabkan ayaan u imaanaynaa appka ayaan appka markaan soo galno xoogaa yar hadda dabcan aniga already Dragon ukuntii dhalaysay NFT-ga ayaa hadda aniga macnaha dabka ii saaran. maxaa yeelay halkan haddii aad ku dhufataan oo kale waxaa ku qoran qaabka aad ku heli karto oo aad ku activate garayn karto. dabcan ani marka hadda haddii oo aan halkan ku dhufto oo aan idhaahdo activate waxaa liiga baahan yahay markii hore waxaa iigu qorneed 500. adi hadhow marka hore bilowga hore 500 inaad bixiso ayaa kugu qoran si aad u activate garayso. activate saa u noqoto oo ukuntan ay kugu dhasho NFT-gii ay ku shaqaynaysay. marka almost maadaama maanta markii igu horreysay aan galay oo aan shaqeeyey 12 iyo bar aan shaqeeyey almost waxaa la leeyahay waxaa ka dhiman 487.50. dabcan marka 11 maalmood oo dhiman ayaa intaan loo qaybin doonaa. marka ay dhammaato oo 500 ay samaysmato halkan ayaan ku dhufan doonaa activate. kadibna waxaa ii soo bixi doono NFT-geygii oo maaragtay maalintii ii shaqaynayay lacagtii $12 ilaa $10 intii u dhaxaysay. okay, markii ay imaato awal shay marka imaatid halkan meeshaan saa u jeedid ay ku qoran tahay wallet ay ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa. meeshaas wallet ay ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa. meeshaas markaa ku dhufato wallet ay ku qoran tahay dabcan waxaa kuu soo bixi doono halkan marka guideline waaye oo kuu sharxaya qaabka asagoo NFT midna waa free midna waa advanced waaye. marka midkan freega ayaa anaga hadda raadinaynaa. marka walletka markaa ku dhufato saan ayaa hadda kusoo bixaysa. ani hadda dabcan iima soo bixaysa already waan samaystay. marka wuxuu ku dhahaa ama ku dhufo create wallet ama import wallet. dabcan marka laba mid ayaa laga rabaa haddii aad account ku leedahay Trust Wallet-ka waxaa soo koobi garaysanaysaa account-kaaga oo Trust Wallet-ka. let me show you aan ku tuso. waxaan soo arkaysaan Trust Wallet oo cusub ah oo samaystay oo wax lacag aysan iigu jirin. marka adinkana waxaan ka rajeynaa inaad saas u samaystaan. marka lacagta oo Polymatic la leeyahayna already waa furtay oo already waa furtay waa ii furan tahay. marka dabcan waa furan kartaa lacagtaas ayadana waa furan kartaa. halkaana ka furan kartaa. meeshaan waxaa ku qoraysaa Polychain ku qoraysaa magaceeda Polychain matic kabacdina saas u xirantahay waa furaysaa simple. marka waxaa samaynaysaa haddii Trust Wallet cusub u samaynaysaa. Trust Wallet ee lacag kugu jirtay ma gelinaysid. mid oo cusub ah u samaynaysaa oo u qaas ah. maxaa yeelay marka kadib halkaanaad tegaysaa. halkaan markaad tagto meeshaan ay ku qoran tahay show recovery phrase ayaad ku dhufanaysaa. kadibna I understand the risk yaa leedahay continue yaa leedahay. kabacdina waxaa soo koobi garaysanaysaa 12 number ayaa soo koobi garaysanaysaa. 12kaas number markaa soo koobi garaysato importigana ku dhufanaysaa. kadibna meesha ay ku qoran tahay safxadeeda ay ku soo bixayso halkaas ayaa waxaa gelinaysaa 12 number. haddii kalena create leedahay 12 magac ku siinaa. magacyadaas marka xafidaysaa. sidoo kale inta magac u bixiyo ku dhaha Trust Wallet-kaaga account-kaaga magaciya u bixinaysaa. magaciya ku qoraysaa whatever magac arta u qori kartaa. haddaad rabto Axmed Jaamac password u samayso ku dhaha. haddaad rabto waxaa u samaysan kartaa 2 3 4 5 6 7 ay numberka taleefankaaga oo ay loobayna u samaysanaysaa. sidaas ayaad ku dhamaysay. kadibna meeshan oo trainka ayaa imaanaysaa. trainka markaa imaato waa meesha ugu muhiimsan. trainer ay imaanaysaa waa meesha ugu muhiimsan. okay, halkan waa marka inta badan qofka hadduusan fahansaneyn uu ku wareerayo. halkan sidaa arkaysaan aniga waxaan sameeyey 500 oo steebisaan sameeyey 500 oo mitir 500 oo mitir aan socday. socodka aan socday marka maxaa waaye aniga gurigeyga dhexdiisa iskaga dhex soo socday.
muddo aan ka badnayn 2 daqiiqo 3 daqiiqo gudaheeda ah. marka waxaa la rabaa inaad shantaas boqol oo kale aad dhammaystirto oo halkan ay shanta boqol gaarto inta ka gaaraysa waa soconaysaa. marka halkan restin ayaa kuu saaran, waad halkan kale ku siinaysaa, walking ayay noqonaysaa. meeshan GPS ka ahna waxaad samaynaysaa taleefankaaga furaysaa, kabacdina waxaa u furaysaa locationka, meeshan locationka furaysaa. locationka markaa furto oo GPS ka uu qabsado meesha walking-ka aad resting-ga aad ku dhufato oo walking isku bedesho, almost waxaad dareemaysaa meeshan inuu dhaqdhaqaaq uu ka bilaabmayo. adi marka socodkaaga bilaabay waxaa sameynaya marka meesha meel aan ka dheeran meesha adi aad markaas fadhiso ama aad joogto ama fadhiga haddaad joogto qol kale inta aad cabaara iska yara soo soconaysaa, guriga ku dhex soo soconaysaa, jikada tegaysaa, cabaar luuqa aadaysaa, jirada kusoo leexanay, waa iska soo soconay wax 2 daqiiqo 3 daqiiqo camal ayaa marna xoog u soconay marna tartiib lixaad si zaa'id ah u soconaysaa. waxaan 3 daqiiqo dhameen camal ayay ku buuxsamaysaa. markay buuxsato kabacdina asagaa restin isgelinayo almost. marka shaqada lagaa rabay maalintaas sidaas ayay ku dhammaynaysaa. kadibna halkan meeshan sidaas ku buuxsamaa, halkaanna 12 xabbo iyo 50 ayaa helaysaa. marka maalin walba sidaas ayaa samaynaysaa, maalin walba sidaas ayaa samaynaysaa. marka maanta waqtiga daqiiqada aad samayso beri waqti isla waqtigaas oo kaleente ayaa samaynaysaa. marka 12kaas maalmood waxaa lagaa rabaa in aad sidaas hoosha u wado si uu noogu furmo, ukuntaan ay noogu furmato oo NFT rasmi aan u helno. kadibna NFT-gaas ay naga saacido in aan maaragtay maalin walba ay noo soo samayso $10 ilaa $12. marka insha Allah waa isla socon doonaa video kale inta badan insha Allah kasoo samayn doonaa. wixii su'aalaha qabtaana insha Allah waxay igala soo wadaagi kartaan Telegram-kayga igala soo xiriiri kartaan. dhammaan linkiyada oo dhan waxaa idin dhigi doonaa Telegram-ka qaybta description-ka videoga hadda aad daawanaysaan ayaa hoosta tegaysaan, kabacdina Telegram-kayga tegaysaan. Telegram-kana sidoo kaleeto subscribe aad saaranaysaan si aad ula socotaan wax walba cusub oo aan soo bandhigno insha Allah. marka sidaas ayaa sameynaysaan. haddii aad u baahan tahay marka inaad gadato almost aad rabin inaad maaragtay iswaasho automatically waxaad samayn kartaa meeshaas shop ay ku qoran tahay ku dhufan kartaa. shop markaa ku dhufatidna halkaas meeshaas buy ay ku qoran tahay ayaa kusoo dhufanaysa. hadda dabcan aniga waxaa lidhahooyaa balance insufficiency. marka waxaa u baahan tahay inaad polychain-kaaga matrix-ka ah inaad inta tagto shirkadda Binance hadda account ku leedahay ama KuCoin aad ku leedahay in aad kasoo xawilato 500 oo adi 510 camal ama 505 waxa kala transaction iyo waxaas camal hadda u isticmaalaysaa inaad kasoo xawilato. kadibna markaas ukuntan markiiba horay ayay iska bujinaysaa, kadibna NFT rasmi ah ayaa waxaynaysaa, kadibna hoosho toos ayay ku bilaamaysaa. hadhowti marka ayadaa marka waxaan kaleento ilmahan kaleento oo kala sii dhali doonto. marka qaabkaas waaye NFT-ga insha Allah. hadda sida arkaysaan 12 iyo bar ayuu maanta shaqeeyay. haddii aan activate ma dhihi karo, marka waa inaan sugaa inta uu ka gaarayo. marka sidoo kaleento option kale ayaa ku bannaan, waxaa isticmaali kartaa sidoo kaleento halkan qaybtan challenge wax la dhahayaa jiro. haddii aan 20 xabo oo matrix ah haysata ayadana sidoo kaleento challenge kale ayaa samayn kartaa. marka it's all depend on waxay ku xiran tahay sida adiga aad maaragtay markaas wax u haysata. qaybtan kale aan imaano. qaybtan marka waxaa ayadana lagu dhaxayaa dad invite gareeyay. halkan invitation-ka meesha ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa. marka halkan ayaa ku dhufanaysaa, kabacdina waxaa qaadanaysaa linkigaas ayaa qaadanaysaa. sorry linkigaas hoose, sorry halkan linkigaasaan ka wadaa. linkigaas meeshaas ku qoran tahay ku dhufanaysaa. halkaana ku dhufanaysaa click copy it oo saasuu linkiga u copy gareysmay. kadibna waxaa la wadaagaysaa asxaabtaada kaleento. qof walba oo linkigan isticmaalo wuxuu kaa caawinayaa in maaragtay hawsha ay kusii fududaato oo percentage-kina uu ku yaraado, level-kaagina uu kor u kaco. hadda sidoo kale invite 3 friends to upgrade level 2 ayaa u wareegaysaa 3 qofood haddaa keento. marka ayadana referralkaas aad ayuu ku anfacayaa. marka qaabkaas waaye insha Allah. isla soconno wixii su'aale ah oo insha Allah oo kaleenta ka imaado waa isla wadaagi doonaa insha Allah tacaala. waxaa noo hartay marka step-ka u dambeeyay oo ah sida loo sameynayo qaybtan u dambeyso oo ah $30 lagu helayo calaa qof walba oo aad keento. ayadana sidoo kale tanna waa referral, dad inaad keenta lagaga baahan yahay.
marka waxaa isticmaalaysaa boodkaana ku dhufanaysaa. boodkan markaa ku dhufato almost aniga hadda waa sameeyey. marka boodkan markaa ku dhufato waxaa lagaga baahan yahay meeshaas set address ay ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa. kabacdi set addresska marka halkan aad ku qoraysaa. halkaana marka waxaa ku qoraysaa si u qoran tahay slash set address si u qoran tahay xariijinta wax dhan raacsiinaysaa. kabacdina addresskaaga waxaa soo koobi garaynaysaa waxaa soo koobi garaynaysaa addresskaaga ahaa. halkan ayaa liigu tusaa muujeedaa qaabkan u samee ayaa liigu dhahay. marka set addresskiaan qoray kabacdina set addressaan qoray kabacdina waxaan raaciyey anoo wax kale ku darin. waxaan raaciyey addresskayga waxaan soo koobi gareeyey oo trust walletka ayaa soo koobi gareeyey oo polymaticka ahaa oo isla kii igu samaysnaa bahalkii. adiga haddii aad already accountka aad trust wallet ka samaysanan oo xagga aad ka samaysato waxaa lagaa rabaa inaad dhankaas aad kasoo koobi garaysato. kadibna rasiifka halkaan aan kasoo koobi gareeyey. marka kadibna halkaas ayaan oon ku sameeyey. kadibna markaas kadib marka intaas aad samayso waxaa lagaa rabaa invite the linkigaasa ku dhufanaysaa. kadibna automatic markaa ku dhufato asaga ayaa kuu sameynaya. hadda saa arkaysaan tanoo kale kuu soo baxayso. marka intaas samayso groupkan waa lagaa rabaa marka inaad ku biirto oo groupkan inaad ku biirto waa lagaa rabaa, muhiim waaye. marka groupkaas see ugu biiri kartaa? waxaa ugu biiri kartaa in aad soo raacdo halkan aad ku dhufato join the group kana ku dhufanaysaa. boodka markaa rabtana halkaana ku dhufanaysaa. kii hadda u dambeeya oo joognay kan halkan waa ku dhufanaysaa. markaa ku dhufatay kadibna meesha join ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa. groupka sidaas ayaad ugu biirtay. marka videogana insha allah intaas ayaa kusoo gabagabeynaynaa. waa kana telegramkeena groupkeena insha allah isagana sidoo kaleeto subscribe noo saar si aa oola socoto wax walba oo cusub oo soo gelino. sidoo kaleeto waxaa kaa codsanaynaa videoga inaad like saar si dad badan ay u gaaraan ay uga faa'iidaystaan fursaddan qaaliga sidoo kaleeto haddii ay tahay markii ugu horreysay oo janaalkeena aad soo booqanayso subscribe noo saar si aad oola socoto mar walba oo video cusub aan soo gelino. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.